aad baan ugu faraxsanahay inaan mashruucan maanta laga dhigo free zone-ka kaasoo ahmiyad weyn leh aad iyo aad qiimo u leh aad baan ugu faraxsanahay inaan dhigo insha allah ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo kii lagu guulaysto ee waxtar weyn u yeesho qarankii ummadda iyo ciddii u qusay oo dhan geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa waxa ay soo kormeereen oo kale saldhiggii military ee dhawaan ay kala seexdeen dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu saldhiggaasi military uu haatan maraya meel aad u fiican qaranka Soomaaliland uu muhiimad gaar ah u yeelan doona saldhiggaasi waxaana madaxweynaha Soomaaliland uu warbixin ka dhageystay injineerada kala duwan ee gacanta ku haya. So when we open this area, when we open this mountain, we allow the water to come inside. That's automatically a support. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku guda jira kormeerka kala duwan ee mashaariicaha ka hirgalay magaalada Berbera ayaa waxa kamid ah oo soo kormeeray gudaha dekedda Berbera waxaana madaxweynaha Soomaaliland uu si rasmi ah xadhiga uga jaray mashaariic kala duwan oo laga hirgaliyay gudaha dekedda waxaana mashaariicdaasi kamid ah qalab casri ah oo loo keenay dekedda Berbera waxaana halkaasi ka hadlay mareeyaha dekedda Berbera iyo mas'uuliyiinta dawladda Imaaraadka Carabtu ay u wakiilatay ama shirkadda DBL ee iyadu gacanta ku haysa marsadaasi inaad maanta soo booqato mashruucii u weynaa mashaariicdii dalka aad ka fulinaysay anna waxaan ka mid ahay dadka nasiibka u helay inay dhammaystiraan mashruucaagii mashruucyada ugu weynaa farxad gaara ayay runtii leedahay waxaanan insha Allah kugu ballan qaadayaa inaanu dhammaystirno dabagal ku sameeyno higsigii loogu talagalay aan gaarsiino insha Allah bismillaah kariim. We have 2 restacker, 10 trucks and also 4 semi-automatic spreader that will improve our performance even more. And in the next few months we will have even more yard equipment come to Berbera. ayaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah wasaaradda maaliyadda iyo saraakiisha kala duwan ama shaqaalaha ka howlgala dekeddaasi iyagoo arrintaasi ka hadlayeen hadalladoodii waxaa kamid ahaa hore waan ka baqi jirnay DBO laakiin labadii bilood wixii ka dambeeyay caadi baan imika ula qabsanay mushaarka weyn oo wanaajiyeen wax walba weyn oo wanaajiyeen waan ula qabsanay cid walbana anaka uga horeynaa imika oo ka hortimaada general cargo-gii balkiga la odhanayay iyo doonyihii meesha way ka baxeen waxay isku bedeleen adduunkuna containers isku bedelay dekedeennana mudan madaxweyne waxaad u sii diyaarinaysaa in ay noqoto hab caalami ah oo bariga Afrika iyo dhammaan wadamada kala duwan ee jaarka ah aynu ka quudino taariikhda weligeedna soo marin oo lama arag heerka ay gaarsiisay DBL marka runtii waa wixii ay markii hore baa saadaalinaysa mudan madaxweyne sheega dadku shaki fara badan bay ka qabeen laakiin maanta waxaad moodaa dekedii boorkii dubay inuu yahay laydka iyo dadku way isbedeleen wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye muddadii ay talada waddanka haysay ay wax badan ka qabatay magaalada Berbera annagu waxaanu lahayn qarankani wuxuu u baahan yahay horumar iyo maalgashi shaqo abuur sameeya dhaqaalihiisa kobciya muwaadiniintiisu bashbash iyo barwaaqo noloshooda u horseeda aragti ka duwan buu xisbiga wadani qabay oo aan looma baahna horumar maalgashina uma baahnin garan mayno iyagu waxay ku horumarin karaan waddankan annagu adduun deeq dunida maanu hayn deyna cid inama siiso annagaa maanta xilka hayna haddaana iyagu dawladnimada garanayn ama haaneedin annagu maanta dawladnimadii baanu haynaa dadka shaki iyo been iyo dacayd bay ku abuurayeen waxay lahayn DBL way inooga daraysaa dekedeennaa la qaadanayaa shaqaalaheenna waa la eryayaa xuquuqdoodaa la dafirayaa kontaynarada iyo waxa ka soo degaa way ka yaraan doonaan cashuuraha kordhi doona intaas oo aragtiyood ayay ku doodayeen shalay bay shacbiga Soomaaliland dhageysanayeen shacbiga noo garsooraya annaguna waxaan lahayn intaa cakiskeeda waxaan lahayn dekedeena la qaadan maayo waynu wada guulaynaa waxbaynu wada dhisanaynaa kaligaan iskuma filin waxaanu ahayn jidkaanu dhisaynaa waynu wada dhisanaynaa waxay noqonaysaa dekedeenu 3 sano gudaheed iyo wadadeenu meel durdura oo waraabisa geeska Afrika
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ugu dambeyntii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ka mid ahayd ballanqaadadii uu xisbiga talada dalka ee kulmiye uu ku galay doorashadii madaxtooyada ee uu ku guuleystay sanadkii 2010 madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay arrintaasi ayaa waxa uu yiri aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halka kan ka soo qayb galo dekada Berbera fulinteedii expansionkeedii iyo kordhinteedii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah taala horumarka aynu dalka ka sameynay ee dekadu sameysay waa mid dalkii dadku u baahan yahay waa mid aynu maalin walba maalinta ka dambaysa ka sii kordhin doono intaa waxaan ka baryaynaa inuu la gacan qabto isku soo wada duubo mashaariicahan kala duwan ee ka hirgalay gobolka Saaxil ayaa kamid ah mashaariicaha ay hirgelisay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu si rasmi ah xadhiga uga jaray dhismo laba dabaq ah oo loogu talagalay in ay yeelato wasaaradda maaliyadda Soomaaliland waxaana madaxweynaha Soomaaliland u sharaxday wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan madaxweyne halkan aynu joognaa waxa weeyaan wasaaradda maaliyaddu dhismaha ka dhisatay Berbera oo aynu isla ogeyn qorshihii aad oran jirtay in meelaha dakhligu ka soo baxo iyo meelaha xuduudda ku yaala inaynu quruxda Soomaaliland ay halka ka muuqato wasaaradda maaliyadda iyo customka ay halkan isticmaal doonto Berbera dhowr iyo 20 sanadood in xorta ahayn waa markii ugu horeysay wasaaradda maaliyaddu dhismo ku yeelato marka dhismo muuqaalkii maaliyadda ka tarjumaya ayaa runtii aynu halkan ka dhisnay loo yacado iyana laftii insha Allah wiigan baa la furayaa oo iyana ku kan ka weyn ayaanu ka dhisno marka Djibouti laga soo talaabo si loo arko Soomaaliland muuqaalkeeda waa dardaarankii aadna siisay tiri meeshii Soomaaliland wajaale weyna ki soo furay aad iyo aad baan wasaaradda maaliyadda ugu mahadnaqayaa una bogaadinayaa hawsha fiican ee qabatay iyo farxad weyn way tahay maanta inaan mashruucan weyn qiimaha qaadan halka furo